الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسلم. تنوى شيكا كلا شيكا أن أد وح وقوع العليا ضدك براه هرمرنت بن آدم كاضلة محاي واقصة عجيب له أو كنت سنيسة وحوين قصدان وحي لذهنين أيا وحو أدونتي إنو نظيفية كالنقضو ترترع نظيفية شركة آدوين أما كمباني آدوين markuu u tagay oo ninkii qaabilayay uu wareystay ayuu wuxuu ku yiri isi emailkaaga ama bariidal electronigaga si aan kugu soo diro waxaan laga rabo saa shaqada u heshid iyo shuruudda iyo mushaharka qaadanaysid iyo waxyaalahaas oo dhan. jawaabtii ninka waxa noqotay anigu ma lihi email buu yiri oo nadiifiyaan hay xagee aniga email isku shaqo miyaan nahay. markaas wuxuu ugu jawaabay hadal haddaadan email lahayn buu yidhi nin jira ma tihid maba jirtidba qofaan jirinna shaqayaa ku aamini kara marka waa naga raalli ahaanaysa. halkaas ayuu ninkii shaqadii ku waayey shaqadii aada u hooseysay oo dhaqaalo yarayd ayuu haddana email la-aan uusan email lahayn ayuu ku waayey. ninkii wuu shaqaystay markii dambe waxa weeye tijaaruu galay lacag badan buu helay maal fara badan yacni aada iyo aada u fara badan ayuu yeeshay. markuu yeeshay oo marka uu weynaaday ayuu wuxuu is yiri hadda waxaad samaysataa ilaa gaaladu aakhiro iyo uma xisaabtamaane life insurance wax la yidhaahdo ama ta'miin alxayaa noloshii ahalkiisa isaga inuu geliyo maaragtay caymiska nolosha inuu galo isagii reerkiisa. marka kambani buu u yeeray waa u yimaadeen kambanigii gabadhii marka la hadlaysay oo kambanigu soo diray ayaa waxay ku tiri okay waa kambani weyn baa tahay naajix baa tahay waan ogolnahay laakiin emailkaaga isi wuxuu yiri sidii oo kale aniguna email malihi. waxay ugu jawaabtay maado intaasoo milyan waxaanaan ujeedo la kala kaxayn layahay leh baan email lahayn haa buu yiri. waxay tiri haddii aad email lahaan lahayd bal guusha aad gaari lahayd iiga waran. wuxuu yidhi email haddaan lahaan lahaa nadiifiye kambani baan noqon lahaa mid kambani wax ka nadiifiya baan noqon lahaaye lacagtaan ma aanan yeesheen laakiin email la-aantii baa waxay ii horseeday inaan wax kala raadiyo. qisada maxaa laga faa'iidayaa? qisada waxaa laga faa'iidayaa marmarka qaarkood hadday kugu dhacaan guul daraysi oo shaqo aad weydid ama businessaad gashay kaa xumaado ama si kale dhibaato kuugu dhacdo kulligeed shar ma wada aha. marmar waxaa laguu sheegayaa wax booskaagii maaha baa lagu leeyahy. marka waa inaad wax akhrisaa waa inaadan kulli u fasiran jabka kugu dhaca ama guul daraysiga kugu dhaca inuu khasaaro wada yahay. marmarka qaarkood waxaa laga yaabaa khasaarahaasu adigu laakiin ma ogide inuu ku horseedo guulo waaweyn oo aad ku faraxdid meeshii inaadan markii lagu qaadan aada rabtay. intaas ayaan kusoo koobayaa arrintan wallahu subxaanahu watacaala aclam.